maan madax dhaqameedka faraha badan leh ee halkan maanta goobjooga ka haydhmaanada ay iskaga kala yimid tuulooyinka saxaafadan sharafta badan leh quruxda badan ee warkeena daadihinaysa haweenka iyo dhalinyarada sharafta leh ee bacadka xamilay ee qoraxda maanta iyadoo 12kii maraysa taagan dhammaan dhalinyarada ka soo qaybgalayaasha ciidamada qalabka sida ee sharafta leh ee hawlgalka inala fulinaya dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa la jeediyey ujeeddadii socdaalkan waa la sheegay khudbadihii ka soo aroorayeyna waa la jeediyey waxayna isugu soo ururayaan waxa qayliyey deegaankii dhirtii baa qaylisay ciiddii baa gubatay quraanjadii baa gubatay xayawaankii ku hoos noolaa baa qayliyey oo gubtay xayawaanka xoolaheennii maanta nimcooleydii aynu ku noolayn ayaa gubatay oo qaday waxba weyday qayladoonkii ka dhashay iyo arrimihii ka dhashay ayaa maanta intaasoo waftiya iyo intaasoo caaqil iyo intaasoo haydhmaan iyo intaasoo taliye iyo intaasoo wasiir iyo intaasoo saxaafada iyo bulshada intaa leeg arrinta isu keentay waxa weeye waa ciideennii oo ololaysa oo aynu doonayno maxaynu doonaynaa inaynu baktiinno taas ma la isla qaatay waayahay waxaa halkan laga sheegay waxaan ilaaway maayiradii degmooyinka ayaan iyagana ilaaway oo guddigoodii wata oo ciidamadoodii saldhigyadoodii wata waxaa halkan laga sheegay in gobolka saaxil madax dhaqameedkiisii gobolka togdheer mas-uuliyiintiisii iyo madax dhaqameedkiisii gobolka muxuu ahaa saraar madax dhaqameedkiisii iyo mas-uuliyiintiisii waxa weeye inay maanta isugu yimaadeen degmada ceelal in maanta la wada joogo oo ujeeddadu tahay shirarkii isdaba joogga ahaa ee heer qaran ee heer gobol ee heer degmo ee heer tuulo ee lagaga hadlayey dhibaatada ay aafadu dhuxushu leedahay ee go'aankii ugu dambeeyey lagu soo gebagabeeyey in tallaabo laga qaado shirkii iminka khamiistii dhoweyd khamiistii ku xigtay oo golaha wasiirada oo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya guddoominayey oo safarka aanu maanta halkan ku nimi uu ka dhashay oo intaasoo laga hadlay taas ayaa hawshani maanta daaran tahay in halkan maanta ceelal hawshaa maanta lagu gebagabeeyo diyaar ma u tihiin inaynu hawshaa aafada maanta gebagabayno cuqaasha maanta saddexdaa gobol ka kooban ee halkan fadhida diyaar ma u tihiin inaad maanta saxeexdaan arrintaa wixii ka hor yimaada diyaar ma u tihiin ciidamada ma la shaqaynaysaan waxay ila tahay haydhmaanadii ilaa 20 tuulo oo haydhmaan baa halkan fadhiya cuqaashii baa fadhida ilaa 20 magaalo ayaynu iminka soo marnay 20 kale oo ka duwanna waa mari doonaa waxay ila tahay maanta waxaynu u aqoonsanaynaa oo ay tahay 8 bisha 11aad 2021 waxaynu u aqoonsanaynaa inaynu maanta aafadii bariga ee dhuxusha ahayd ee deegaankii muxuu ahaa la xaalufinayey ciiddii gubanaysay cuqubadii halkaa ka jirtay mashaakilaadkeedii inaynu maanta soo afjarnay sow sidaa taariikhda maanta uma aqoonsanno waayahay wixii ku dembaaba waa maqlayseen wixii ku dembaaba ee ciidamada ka hor yimaada ee maanta ka bacdi lagu arko hadday gaadiid tahay hadday dad tahay hadday qalab tahay noocay u tahay intoonna waxa weeye waa maqlaysaan taliye gobolka saraar wuxuu yidhi iminka maxkamaddii tuurtaannu ku soo qaadaynaayo odagu isagoo maqan oo dhuxushii ku maqan oo carruurtiiba ka tegay oo dhuxushii ku maqan ayaa odagii dhuxusha lagu xukumayaa dabadeedna waxaa la geynayaa saylac meel saylac ka sokaysa oo la geynayaa qofka dhuxushaa lagu qabto ma jirto waxaannu codsanaynaa oo amraynaa inaanu caaqilkuna ka daba iman hooyada iyo carruurtuna meel fog baa la geynayaa ninkaase ha soo lugoyna
ها حصل لقينا وأكتهين وسارد عدالة أنا أضيكه معيدا كأسلوب تانوجو يهوسي بعده وحي إنه بلنا قفك هالكال لجو قبته يا جاريج لجو قبته جاريج أنا عيدا ماذا قرن كان لو وريجيه محبوس كانوا حلقين دورا لقهية يسيلع حصل لقينا أرجع يرى الدنبها إنك حراشنا نولق يو بدنن وحير عرورته اللو دايو ننكر أنك كور هينا إنه ميل وناكسن بلقينا يا أصل سلادة له أو كرهيا أو كرتان له أو هلسة وحويه أو أن أذو قرنا إنه أو وليبا وحن ذي شيء ننكر مركز صدح سنة لقو حكوه مركز صون نقضه لفتيس وحويه وعيقلن بودي صوين دورا يا وذاك مركز هالكاين كلا جايو isaga laftiisa aynu ku filaanayo wuxuu idin 10 buu idin dhigayaa wuxuu ka warrami doonaa gool tarada oo halka ku soo arkay taasna intaasaan runtii kaga baxaya waxaan dib ugu noqonayaa Axmed Sugaal baa halkan ka yiri 2 baa wafti inta leeg noogu dambeysay waxaan xusuustaa xilli aanan taariikhdeeda sheegayn inaan halkan wafti heer gobol oo ka kooban dhowr iyo 10 aan isugu nimi oo xilli hore ahayd oo degmooyin badan la soo maray oo dhanaana ay ka mid yihiin iyo dhul badan iyo dhul badan bariga waan xusuustaayo halkaas aqal wanaagsan oo qurux badan laga dhiso kabdihii leh magaalooyinka iyo degmooyinka aan bariga soo marnay wankii halkana ayaa qaadatay wax la yiri ragii mees jooga wuxuu yiri ceelal gobol bay noqon doontaa waxay wankii ku gashay aqalkii quruxda badnaa iyo qudaaraanan degmooyinkii kale laga helin ayaa ceelal bariga waan xusuustaayo de ragii wali waa joogaaye ayaa bariga halka ayaa waftiga lagu casuumay meeshii caynkaas ahayd meeshii sidaas ahayd ee ilbaxnimada lahayd ee qaabka ahayd maanta miyaynu yeelaynaa in la yiraahdo hoygii dhuxusha ayay noqotay miyaynu yeelaynaa waxaan leenahay arintaasi waxa weeye maanta dhuxusha halkaasa lagu bireeyay halkaasa go'aankeedii lagu gaaray xukunkeedii waa diyaar askarigii qabanaya waa diyaar waxa dhici jirtay in askarigu muxuu ahaa taliyaha qaybta muxuu ahaa gobolka Saraar inuu baawur soo diro inuu habeen soo dhaxo habeenna sii dhaxo in la yiraahdo dhuxulaysato uu yiraahdo gaarigii waa ka tagay hadda beerka yar dhiga marka gaarigu noqdo la yiraahdo ma idin sii dhaafay ha xisaabta inoo wada war sidoo hore ma aha arrinta hadeer war sidoo hore ma aha moobilka lacagta lagu shubay baa la sitaa hadeer haduu xasan gacmo yar haduu idin soo saaro hadeer moobilka waxa la hayaa cid kasta oo burco fadhido ganacsatada ka xagga Puntland ka yimaada lacagta soo diray ka halkan jooga hadeer hadii maanta waanu ka xishoonay inaanu si ay dhiida soo saarno moobilada lacagtii la soo diray maanta waanu ka xishoonay laakiin waxaanu ku wareejinaynaa labada taliye qaybeed baanu labadii feel ku wareejinaynaa waxa iman doonta in isagoo ninku gurigiisa jooga in halka maxkamadda loogu geeyo arinta waxa weeye hore ayaa looga hadlay dib uga noqon mayno waxaan ku soo u gudbayaa macdanta garana in la furo laakiin waa saxeexaynaa iyada laftigeeda ilaa hadhow haddaad tidhaahdaan qayb baa wax yar saluugtay macdantu ciyaar maaha Australia laga keenaya iyo dhul baa laga keenaya Ingiriis iyo Jarmal baa imanaya China imanaya magaalada cadaan baa ka shaahi doona iyo madoobo waa ka shaahi doonaan iyagoo qalab sida iyaga oo inoo socdo oo doonaya inay deegaankeena wax ka soo saaraan hadday hadhowta arrimaheena iman doonaan oo bahalkii yaraa qoriga in la carari doono oo buurta gali doono taasi ma jirto taana saxiix baynu maanta u kala qaadanaynaa عقاشة يا هيد ما نضبوا وصهريان دحوشنا واسحيحيان معلنتنا إنه كنا واسحيحيان وحوية تاس عيارتها معها وهي مركا إنه أنك يو وسيرة إنه كانية برا صعبة إنه هالكا كان من مرتيا أو أقويانا وبورتين جرايا ونافر سمينيا هدي هذا وتم لها وحكدك دقاقان زور تقل ميسو هير فقايوب سيدي محمد حاتي وكبرارين markay ku balaareen wuxuuga isbedel baa yimi faqaayub waa dhisantay iyo tuulooyinkeedii mashaariic badan baa laga fuliyay laakiin markii lacagtii jeebabka yar buuxisay ayay laftigoodu isku xanaaqeen ayay wasaaradii wuxuuga xanaaq baa yar galay 7 bilood hadeer sanad iyo barbay heer faqaayub ma shaahin
haddeer ay isu yimaadeen annagana noo yeedheen waxay yidhahdeen wixii horena waa ka toobad keennay annaguna gacmahaanu ishaysanaa alaabtii haddeerna ha la furo waxaanu bil dambe ganaax tihiina bishaana waad ka hamsanaynaa baanu nidhi marka waxa weeye macdantaana warkeedu waxa weeye dhuxushaasay la mid tahayoo taana waa iska xidhaynaa ya taa aafadana waa iska xidhaynaa taana waa furanaynaa labadabana saxiix baynu ku gadoobaynaa taasna intaasaan kaga baxayaa waxbarashadii waa laga hadlay caafimaadkii waa laga hadlay arrimaha barasaabka waxaan ugu hambalyaynaynaa inuu qoladii biyaha inoo furaysana la socdo dawadiina ay baabuurtooda saaran tahay ay gobolkii ay sidaan arrimahaana aad baan runtii barasaabka iyo tiimka iyo muxuu ahaa iyo mas-uuliinta ka hoose uga xamdinaqaynaa waxaan ku soo gebagabaynayaa halkan waxa la yidhi cuqaasha waxay yidhahdeen wasiir walowba saxeexo suulka saar bay waxaad filinayso waxa weeye horta saxaaxa dhagax dhigga waxa ka horeeya ogaanshaha ayaa ka horeeya waa kii wasiir maxamed xaataan ka sheekaynayey dee intii horeba waa la dhagax dhigayo waa la qabtay intan maantana mar haddaan 600 kilomitir soo soconnay madhnaan mayno ma madhnaan doono ogaada ku talagala in kasta oo agtihiin qaranka Somaliland wax qabad badan baa jira haddana markii tuulooyinkeenni bateen oo degmooyinkeenni bateen waa ogtihiin gobolka Saraar kaliya iminka waxa weeye waa 7 degmo weeye gobolka Togdheerna waxa weeye waa 14 degmo weeye 14ka iyo 7da waxa ka farcama ilaa 600 oo magaalo ayaa ka farcama 600 ba amni bay doonayaan caafimaad bay doonayaan waxbarashay doonayaan waa ogtihiin sidaa daraadeed mar u wada qaban kari mayno wixii hore loo qabtana waa alxamdulillah waa ku faraadaygaynaa wixii dambana waxa weeye siday u kala mudan yihiin ayaynu u kala qaban doonaa haddii ilaahay ka dhigo mudnaanta koobaad waa siinaynaa degmada ceelal waa siinaynaa waa ballan waayo waxa weeye burcana waxay u jirtaa 180 kilomitir caynamana waxay u jirtaa 100 intaa in leeg waa dareemaynaa marka loo soo gurmanayo saldhigga ceelalood inuu taliyaha qaybtu gaarigaasi intaa soo soconayo kaasina intaa soo soconayo gabadhii uu mushaahidna marka gaariga la saaro inay waxa weeye dhaxdaba naftu kaga sii baxayso ilaa burco ama ilaa caynaba waa dareemaynaa in adeegyadii degmada ceelal ay ka fog yihiin in tuulooyin badan degmada ceelal ay hoos yimaadaan waxaanu ballan qaadaynaa haddii ilaahay ka dhigo kollayba inaanaan maanta odhanaynin kaasaanu dhagax dhignay laakiin inaan xoogga saari doonno bilayska caafimaadka wadooyinka iyo maxkamadaha inaanu xoogga saari doonno haddii ilaahay ka dhigo taas ayaanu idin ballan qaadaynaa haddii ilaahay ka dhigo waxaan rajaynaynaa noqodkan ku xiga inaanu idinkula soo noqonno annagoo jawaabaha aan nafarteen annagoo saaxiibaday la soo tashanna oo madaxweynaha iyo golaha wasiirada riboorkii gaadhsiina oo aanu warkii idinkula soo noqonno annagoo kolleyba jawaabaha qaar ka mida sidna waxaanu aad uga mahadnaqaynaa ilaa iyo shalay markaanu ka soo baxnay burco intii aanu soo marnay ilaa maanta ceelal soo dhoweynta wanaagsan ee kalgacal kale ee ixtiraam kale ee xilkasnimada leh ee aad ilaa iyo shalay bacadka u taagan tihiin aad iyo aad baan idinku soo dhoweynaynaa